ساكت تارجت كوكا وحلونتي شنت لك تاجا بالمادر لا لونتي شنت لك تاجا روح ونوريال دو نوريال وهاي سكروا سومالي لاند واي ما فهمتين مركب الحمد لله شكرا كرتي لا يقف قد حد راهي ما فهمين عركاس مرس مركب ميدا يدين شي غايا horta fideogan qarta waa video laga duubay oo liigaaday mise ana lii jeedaa markaan ideysin hala waa la soo qarxiye waa alla heystan saawna cala ilaa heysta adduunka la kala gawaa waa laga garbaxayaa waa lagu saga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركل يوم مقال عصب مركل يسكسون نقاش حيصة له ولكن هلا برع بله له برنا إما برده ما تعود كي حاجة حبيب بكتيرته وحبا يقوله هوس بدو هذا ليسا بس حتى أنا وحبا له وقت قايلنا يسا بس قايل ضيدا نسلوك سنة معها مركا هديان هذا كي تسوق عليه ومرحبا من الربيع هو بيقول هدو هوس هينا وادقو قاعدين يسا مقال كم يرد الدشنية إنه بوبسيان ربع 1 2 3 أنك قاعدين وحبرت تقوله وذاك إن أنتو هذا سهام تحليل وين يوتيوبردا تيك توكردا برتناد بنوغا سلاميا وين شرف ملكو عسي افكامنان يا اخلاق انت بي هيسي وان بريه ugu dambeeyay kamid noqotay dadka baraha bulshada ugu cadcad qofku markuu baraha bulshada qofka ugu cadcad uu noqdo waxaad arkaysaa muuqaalo iyo waxyaabo la mid ah oo laga soo qarxinayo hal mid bay isweydiiyay dhammaan dadka la soo qarxinayo ama cod ha laga qarxiyo ama sawir ha laga qarxiyo ama muuqaal ha laga qarxiyo waxay u badan yihiin reer xamar maxaa dhacay war waxay masiibadan idigu wada dhacday ee rag iyo dumarba asaa wada qalalantii maxaa dhacay waan qiimeeyay waan eegay haddii ay noqoleed mar waqooyi mar koonfur mar meelaan dhexe mar gobolada dhexe mar xagaashe mar jigjiga mar jabuuti haddii saa ahaan lahayd macnaha waxaan odhan lahaa war waxaan waa masiibo soomaali halaashay wey laakiin waxay masiibadan ku dhacday dadkeennan gaarkaa ee walaaladeen ma anun baa mooday mise waa siday ila tahay way dhowr qof baan arkay halkaasaan arkay waa xagga haddana halkaasaan arkay waa halka haddana halkaas la hadlayo waa xaggaasun haddana halkaas la hadlayo waa halkanun abtow macaanow bal dib iskugu yara noqdo oo inaga daaya midda labaad haddii nin uu noqdo waa xaggan haddii gabadh noqoto waa xaggan bilaa calayk waa sideedii yaa ilaahay khaatimada khayr inoogu khatime inantan haddaba muuqaal baa jira yar oo kooban oo laga soo dhigay dadku waxay ka dhigayaan ama ay doonayaan qofka sumcadiisa sharaftiisa inay ku bahdilaan laakiin inan kasta oo le muuqaal baa laga duubay waxay u badinaysaa ama badanaa ay sheegayaan waa dumarkayga cadow isku noqday tusaale muuqaalka horta idiin wadaa muuqaalkan idiin wadaa waxa weeye dagaal xooggan oo ka dhacay Laascaanood gaar ahaan Gooja Cadde dagaalkaasoo macnaha aan maanta waxba la iskula hadhin bamtaa yaadhay kaana bal in yar ban yardu istaagi doonaa wax yarna waan ka hor doonaa muuqaalo yar oo kooban oo digala wadaagi doonaa balse waxaan idin tusayaa dumarkii cadow isku yiin annaga hadda ka ragnay waxaan saragnaa rag baan saragnaa fara badan oo caana qaar kamid sigaar bay cabaan qaar kamid qaad iska cunayaan qaar kamid naaga iska wataan qaar kamid xitaa garafiino filayo meel aan munaasib ahayn buu iska fadhiyaa oo qaraabadii iyo qaadkii xisaas ka dhex yaalaan anigu balwad ma lihi ka shaqseexan cawlahan laakiin dadkaasoo kale markaan macnaha aan u tago ama aan imaado haddaan duuba ka waran nin ahaan igama suurtoodo haddaba dumarku markay iyagu meel iskugu yimaadaan ay arkaan inan ka mid ah hablaha meesha jooga oo ay arkayaan inay tan ugu caansan tahay ama ugu magaranaysaa qof dee baraha bulshada laga qadariya ay tahay dumarku kow hiblaayo way ka caansan tahay marka meel la wada marayo ay la socoto hiblaayo iyada la salaamaya bikh way kala masiiriyaan hablo taas macnaheedu waxay keenayaan sidii ay sharafteeda dhulka u dhigi lahaayeen tusaale muuqaalka bartan uga jeedaan macnaha meelaha kale adigu dee iska fadhiistaan haweenkeenu wey meel ka mid a saa u jeedaan muuqaal yar baa lagu xaday muuqaalkaasoo macnaha la doonayo in macnaha iyada wax loogu dhimo laakiin waa iska fadhidaa xidnay marsanaysaa waxaa ka duubayaa rag maaha meelahan dumarku ay wax iskaga marmarsadaan inay tahay baa laga yaabaa sidaa awadeed waxay ka duubayaan muuqaal inanta ay ku bahdishaan inantaasi waa intan baraha bulshada ku arkayay waa hablaha ugu xishoodka badan hadda un madaxa la yara kacay isla haddana waxa cagaa kala laadaa waa dumaro waxaan doonayaa muuqaal yaro gaaban in dileera wadaago bal muuqaalkii leera dhageysta ما فهمتين أنا وربوبونس نمربي أمان هالسكسيو ملي مقلوع وريا بقلالة عن هنا
وحير ولا قسم يستاجر كود كان عصانو صدم دور العقمية أكو بحيا مركا سالقو سقرا لا إله إلا الله ولا سقر حي سانا لصويا لي هرت عليك فكر ألدان تاثيرنا معناها waxaan aqsan tahay caray bes tahay macnaha adigu taadan ka fikir aniga sidan inaan saaxiibna la hadlay muuqaal wada dubin dhigeyso macnaha call ku wada jirnay sida way kaga dhufay screenshot bay ka qaadatay macnaha marka ugu dambeyn adigu waxaan ku leeyahay un taada adigu ka fikir shakhsiyadaada maxaa lagugu sameeyaa guriga horta ma joogtaa waa hurdo sameeyaa naag asturna xafidina tamo riya maxaa idin sheegaa أمانسي واحد يبني وحصص إيسو قرآن ولا وبلا ترى الدمر واحد ركوا دفي قليل ورحلوا أسألي واحد وساكوا أسألي واحد أنت بس والله وبلا طلع عيلك يود الشيء محمد ذي شيء أمانسي واحد يبني وحصص إيسو قرآن ولا وبلا ترى الدمر واحد ركوا دفي قليل anyway waxay taagan tahay waxa ugu badan ay soo caayaya waa dumar marka cadow idinka diga horeeya ma jirto ka xishoodaya ka daayaya maaha hadalka raggiisa loogu tagaa waa kala xishooda dumarow mid labaadna wax isku quura markaad aragtaa inanta saaxiibada oo kula socota oo suuq wada tagteen oo iyadii la bariidinayo oo iyadii sawir la degayo lala gelayo biq hasku xanaaq afka ha u buurno fadeexadeeda raadinne saaxiibada ayo caan iska noqotay waxba ku meelaysa adduun lo dadka caan ka noqda ee sawirada lala galgalo ee la raadiyo lacag bay ka sameeyaan laakiin inaga Soomaali waxay dadka kaliya caanimadooda sharaftooda ay ku waayaan iyo dadka dad ugu dhow mar ay marka caan noqoto dadka ugu dhow waa cadowga koowaad ku noqonaya muuqaalka ka duuban codaha ka duuban dadka ku diraan warha ka geeyaan macna marka ilaahay khatimada khayr inuu khatimo bal waxaan doonayaa hadaba xagga iyo goojacade in yar diga rogano ama u yar ruqaansano dagaal xooggan ba ka dhacay sida bartan uga jeedaan ciidanku maanta ma hay shalay habi bay ahaayeen xaaladuna way deganayd askari bal ka warbixinaya shalay sida xaaladdu ahayd ayayna barta kula wadaagi doonaa muuqaalka kalena waa sida ay maanta tahay ama waxa maanta ka dhacay qayb kamid ah bal kan ila dhageysta taliye saaga ka warjoobiga aad aad u fiicay ay gaadhu intii gooch cadde waan gartay cadowgayda soo wareey baan insha Allah aan walaalka galina waan gartay cadowgana uu jabay imikana baan qawan samraacinayna bariyo sidii maxaad leedahay bariyo sidii waxa la meesha iskaga yaacay intaan ku qaban Soma naftan lagu qabanaya wallahi nolosha aad ku soo gaadho way ka bixi maayaan baan leeyahay aad yaad oga taliyaygi dina hadlay wasalaagishii qaranka oo saaka aad yaad baan ku soo dhaqaaqnay aad yaad baan ku salaamay tali ciidanka qaranka soo dhaqaaqnay aad yaad aad yaad dagaalkuna waa gobernimo guushuna waa xaqiina annaguna waa soo soconaa nagu sima wixii aad qabataan waxa kala nagu sima annaga ayaa maaragtay u taagan oo maxaan ku dhahay ciidanka way isku bedelanaa ciidanku is bedelayaan oo istaba socdaa oo hadalku ugu go'ay marka sida awadeed ciidankii istaba socday ee is bedelayay maanta dagaal bi ku abriistay iyaguna dagaalkaas sidoo u dhacay bal muuqaalaga oo goosoo laga soo duubay mid kamid ah ila daawada saaka oka targetku waa ka saaka ka gabada bari culusta ka gambo saaka targetku waa ka waxa dhuntiisu inta laagtaaga bal ma adeer eega dhuntiisu inta laagtaaga ruux waa nugriyeel dawa nugriyeel waxa ay haysan karaan Somaliland leeyahay wala yaabi baan wala yaabi oo kuwa saraakiisha ciidanka oo kuwa waa hubka ugu culus ee Soomaalida isticmaasho beenama habkii nuclear kun buku jira kan mid ka culus ay isticmaalaan ma jiro horta xaaltaas aad bay u cakiran tahay haga la soconno inta in leeg laga soo ridayay malaha mid kamid mid bay haystaan safilayo mana si mala la sheegay warkii ku soo gaadhay inay xaqiiqta iyo beentayna ma sheegi karo waxaan rajaynayaa insha Allah in ay nabad iyo xasooni iyo safgarasho ay ka timaado marnaba lama tanaasulo laysmana dhiibo marnaba laysma iraahdo waa la kala sii fogaanayaan xaaladdu adkaanaysa dagaalku adkaanaya dadku way isnacayaan god yar adag baa la isla gelayaa waa xaqiiq laakiin mar walba waa tii dhamaata balse kulliba haday tahay kulliba tii dhamaata haday tahay waxaan rajaynayaa in ay noqoto mid si dhaqso ama si degdeg ah ilaahay u qaboojiyo dabkooda aad ba u mahadsantihiin inta muuqaalka ku xukuma doona xadiga digaysa amaana la iyo muuqaalka si la garaysaan dhamaantii waxaan leeyahay bye bye